maadaama nin in badan waay aragnimo badan sanaagu leh oo in badan joogay luuqadda maakhiliga ama afkan maakhiliga ee sanaag inta badan deegaanadiisa laga hadlo waxyaabihii aad u soo joogtay ama kuugu la yaabka badnaa ee aad aragto maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa nin caraba ayaa wuxuu keenay dooni raashina dabadeedna wuxuu keenay xiis iyo maydh dabadeedna wuxuu carabkaas yidhi waxaan doonayaa in dhamasa iga iibisaan dhamas inaa iga iibisaan aan doonni ka dhigto dabadeedto 3 bilood baa reer xiis iyo reer maydh xoolihii cunay ninku sitay gig ka siiyeen dabadeedna ninkii markuu 3 bilood joogay buu yidhi dawaan waan iska tegayaa dabadeedna xaggiisii buu tegey xaggii beled carab ayuu tegey dhulkii carabta markaasaa la yidhi akhuukhii balbooran markaasuu yidhi inkaan tishti kadib ruuxu xiiso maydh سعيد علي ku soo dhawow walaal magacaaga سعيد ku soo dhawow channelka Secretary-ka waxa ku sugannahay Sanaag Cergaabo maadaama ka mid tahay dhalinyarada gobolka Sanaag ku soo dhawow channelka aad iyo aad saaxiibo ku dhawaay Secretary-ka adigana Cergaaban ku soo dhaweynaynaa inkastoo burco iyo xagga kugu hogeyntii adigoo imaada laakiin ku soo dhaweynaynaa halkan balaarin baa socota imika runtii gobolada kale aan tagayno Sanaag wanaga joogno runtii barnaamijkan waxa fududeysay safar salaama shirkadda socdaalka isku xidha Cergaabo iyo gobolada kale ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato niyo shirkadda safar salaama shirkadda aad wanaagsan wali waxay ku fiican tahay xagga waxyaabaha kaargooga aad ugu wanaagsan tahay marka shirkaddaas in badan bay soo kordhisayo alaabo fara badan oo waqtiga on time bay inta badan ku geeyaan meelaha ay markay magaalada keenayaan su'aal shan ku bilaabay kaftanka intaad Cergaabo joogtay waxyaabihii kugu qosolka badnaa ee aad maakhirnimo kala kulantaa maxay ahaa niyo wallaahi Cergaabo doorta dadku inta badan waxay ka aaminsan yihiin meel maakhiriyo waxay tola hadallada la soo dhigo ma garan laakiin dadkaygu saas ma si baalkeesne waxyaabaha laakiin way jirtaa waxyaabo imika tusaalaha kale adigoo halka fadhiya ba marka la doonayo in iska cusubto lagu goloma adigoo kala imika yimid moogta dabadna xal war waxay gaariga cusub soo galay iyo mar lagu hoos dhigo maay tolay maanta falaasad cusub baad keentay iyo waxa taa sheeka jirtay laba nin baa waxa dhacday magaxba yimaadeen oo reer galbeed oo Hargeysa yimaadeen Cergaabo yimaadeen dabadna inan bay meherdeedii fadhiisteen dabadna inantii baa inan u soo gashay markaasay tiri waxay aragtay in laba nin oo cusub meesha fadhiyaan moogta markaasay tiri ayaa heblaayo ii waran fiican tahay oo maanta laba falaasadood cusub baad soo baysatay markaasay tiri haa oo laba falaasadood cusub baan keenayo waliba tacasba shaahi qaboojista markuu ilkalaay ninka casaba ilkalaa moogta dad markii ka baxday meeshii ka tagtay ayaa nin soo galayo markaasuu ninkii meel la fadhiyay nin baa la fadhiyo markaasuu yaaryaanayn meeshan iska kacay ninka leedka hadlayay iyo falaasada ilkaa markii falaasada qaboojinaysa maad garanaysaa ninka ilkaa ale cas meesha ka carar la sidii magaalada ka carar marka way jirtaa waxyaabahaas Cergaabo aan bay ku yihiin inta badan laakiin saa uma sii foga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdikariin Aadan Maax naanasteedana waa Libaax Xasanaag ku soo dhawow channelka Secretary-ka Cergaabo Sanaag baan ku sugannahay waa dhawahay walaal aad iyo aad baan dhawahay walaal aad baan dhawahay su'aalo kaftana ayaa waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama oo caan ku ah socdaalka gobolada Sanaag iyo gobolada kale bal ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato runtii adeegyada shirkaddu qabato anigu kulay nin ganacsada baan ahay hadir muddo iyadan runtii ku xidhnaa waa shirkad aanu aad iyo aad u soo dhaweynay xagga aaminimada iyo degdegsiimaha iyo shaqada degdega marka runtii aad baan u soo dhaweynaa shirkadda Safar Salaama waxaan ku bilaabayaa su'aasha bal intaad Cergaabo joogtay ama maadaama nin Cergaabo tahay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa qof jacayl aad wadaagaysan aad kala kulantaa wallaahi runtii waxa igu la yaabka badnaa muddadii aan shaqada bilaabin intii aanan ganacsada ahayn runtii gabadhaan u sheekaysan jirnay professionalkayga markii ogaatay markii hore jacayl baana dhex maray markii dambe waxaan u sheegay inaanan wax hanti aanan ahayn reerkoodana aanan dooni karin sidaa daraaddeed waxay go'aan ku gaadhay inaan wax professionalkii jacaylka oo meesha ka baxo taana waxa kaliftay waxaynta waxaan leeyahay habluhu waa inay fududeeyaan mustaqbalka iyo guurka taasaan kula talinayaa hablaha dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
maxaa dhacay markaa waxaa dhacay runtii dee markii hore borofeshinkaygu wuxuu ahaa inaanu gabadha mustaqbal iyo aroos iyo aan wada gallo markii dambena waxba waan isla waayey alxamdulilah markii dambe gabadhu reer sanaag bay ahayd markii dambe nin ganacsada baan noqday alxamdulilah muddo 2 sano ka bacdi waxay ogaatay inaan ganacsada ahay fariin bay markaa igu soo dirtay whatsappka waxay tir ka waran hadaynu arrimihii jacaylkan ka soo wareegtay markaa 2 years baa ka soo wareegtay 2 sano anna waqtiga waxaan ahay nin ganacsada oo borofeshinkiisa iyo arrimihiisa iyo himiladiisa gaadhay hadda xaas baan leeyahay 7 ciyaar codsigii markaa maxaa dhacay codsigii de jawaabtii baan siiyay waxaan idhi jaaniskii ku soo maray waad ka faa'iideysan weeday hanti la'aan baad igu nacday igu diiday maantana hanti baa leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin marka jaanis ma haya xaflad jaanis maanta today baan ku yidhi marka iga raallahow marka hadda weli way la soo hadashaa waxay tidhahdaa ka waran haddaynu sidaan baqaanto jacaylkii marka waqtigii gaban haystaan waa alxamdulilah rabbil caalamiin marka waxaan leeyahay gabdhuhu waa inay soo dhoweeyaan mustaqbalka ragga yaanu ku nicin wax la'aanta hanti waa la helayaa maantana ma haysid barina waad heli doontaa insha allah magacayga axmed cali baa la rabaa axmed ku soo dhowo channelka Secretary aad iyo aad baan ugu dhawaysan kariye maadaama gobolkii Sanaag Cergaab aan ku sugannahay shirkadda Safar Salaama ayaa fududeysay barnaamijkan ka waran shirkadda Safar Salaama adeegyada ay qabato ama waxyaabaha ay kaga duwantay shirkadda kale horta waxay kaga duwan tahay isla maanta aad baxaysaa mar dhowna waxba joogtaa Hargeysa marka waxaan ka garaysanay gawaaridii waaweyn ee waraadada aan raacinay baan ka garaysanay shirkadda Safar Salaama aad iyo aad baan u soo weynaynaa waxaan leenahay ganacsiga mid ka badan ha keeneen si magaaladu ula qabsto dunida horumartay adood ma su'aal kaftan ku weydiinaya luqadda maakhriga waxyaabii kugu qosolka badnaa intaad Cergaabo joogtay aad aragtaa mad la kulantaa waxa ka mid ahaa hadda koor baa wiil ka yimid Abudabi baan soo raacnay maqaxay baan nimid madhoobe waxay guraadeen warni markabkan ku soo degay muxuu ahaa kaalay maad naga qayb gelinay markabka soo degay inaan xamaalinta noqono waxyaalo qosolka badan ka mid ah markabku waxa weeye qofkii la socday dabada ka yimi bay waxay leeyihiin markabkan kula socday ma shaxaad iyo maad wax naga siinayn ma kaliya baa iska wataa marka kaas ay ugu qosolka badnaani marka maxaa dhacay inta ka dambeeyay waxa dhacay anigu waan fahansanaa ma garanay ninkii baa yuni Cergaab ama tigad beelada waxa markabka soo degay madhoobe baan ku labaadiga kaas ay ugu qosol badnaa adood ma waxa la yiraahdaa Sharmaake Maxamed Cabdi Sharmaake ku soo dhow channelka Secretary waan ku dhawahay maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Cergaabo su'aalan dadka weydiinaa shirkadda Safar Salaama barnaamijkan fududeysay ee socdaalka gobolada kale ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato adeegyada shirkaddu noo qabato aad baa looga raystay baabuurtii la sugi jiray wiiga maxaan ku dhahdaa markaad subaxii baxdo habeenkii wax joogto Hargeysa marka aad buu fiican tahay Safar Salaama adood ma shirkaddu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan ku bilaabaya waa su'aal kaftana maadaama nin reer Sanaag aad tahay Sanaag waxa ka jirta luqad leedahay maakhri runtii waxyaabii aad ugu soo joogtay ama ugu qosolka badnaa maxaa maakhriga waxa weeyaan kulli anu waxaan u haystaa maxaan ku dhahay ilbaxnimadii ay gobolada ka horeysay Sanaag xeebaheeda waliba xiis iyo maydh marka taas aanu haystaa inaan maakhri kale si kala ahayn way su'aal kale aan doonaynaa inaan ku weydiiyo hadaba la xidhaa arrimaha jacaylka runtii waxyaabii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa jacayl kala waxay ahayd maxaan ku dhahdaa mar Hargeysa tagi oo inaan aan la yar sheekaystay jacaylku isku fiicantay jacaylka waan isku fiicnaa hadda waan ka yar weynaaday kowde inanta la sheekaystay waxay tiri wala isla tagaa waxa la tagaa meel kale oo leeyahay Arabsiyo ha waalidka ayaa abhaan joogin waa joogaa laakiin tana ka fududo caawa waan wada joognaa marka maydayada tiri marka arrimaha jacaylka wax aad u xum iga soo marin ma sha Allah marka maxaa dhacay wixii inta ka dambeeyay hawlaha iyaga dhameysan Farxaan Ismaaciil farxaan Ismaaciil oo ku soo dhow channelka Secretary oo ku soo dhoweey walaal ma santaad aad iyo maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Cergaabo su'aalaan ku weydiinaa shirkadda Safar Salaama ayaa barnaamijkan fududeysay ka waran shirkadda Safar Salaama waa shirkad socdaalka gobolada kale ee wadanka isku xidha iyo Cergaabo marka waran shirkaddu waa noo fududeysay xagga socdaalka dadkiina waa noo kala fududeysay waa shirkad waa u mahad celinayna shirkadda su'aashan ku bilaabaya su'aal kaftana maakhrinimo luqadda maakhrinimadu caan bay ka tahay gobolka Sanaag waxyaabii aad u soo joogtay ama kugu qosolka badnaa maxaa kamid ah waxay iga mid ahaa walaal gobolka Sanaag halkan Cergaabo ka tagay waxaan tagay meesha Hargeysa dina waxaan fariisay kabad 2 nin baan nahay dina waxaan fariisanay kabad qaad ma haysano waxba Cergaabana waa aragto waa laga khayr baa laga qabaa dina kabadkii waan fariisanay anaga waxba haysan dina nin baan waxaan ku nidhi labadeeda sida hadalay ninka kale wuxuu yiri wana geeluna waa ma yahay ceelkiina geel waa ma yahay
niman badan baa markaa fadhiga qaadkooda haysta bas waxaan ku yidhi ceelkiina waa qalalaya nimankii meesha joogay waa naga carareen waaba carareenba ceelgaabaa soo gashay ahay waaba naga carareenba taasaa igula yaab badnay aniga aad iyo aad baan idin salaamay waxyaabii kugu la yaabka badnaa ee aad jacayl aad kala kulanto ama kuu qosolka badnaa maxaa niyo wallaahi waa badan yihiin laakiinse middii aan la yaabay waxay ahayd inan aanu wada sheekaysan jirnay oo habeenada ka mid ay soo garaacdoo tiri walaal hargeysaan joogaa $5 ii soo dir shoobin baan ku soo samaysanayaa taasaa igu la yaab badnayd maxaa dhacayse maxaad samaysay maxaan sameeyey de lambarkuun baan dansaday waxba waanan haynaane ya teleefonkuun baan dansaday go'aan noocee waxaan ka jacaylka lacagta un baan ka booday ma garanay inantii wallaahi inay suuqa biibsiga hargeysa imika ku sugan tahay waan jecelahay ya magacayga mubaarak maxamuud jaamac cabdi baa layihahdaa abaan mubaarak maxamuud jaamac cabdi abaan waarig ku soo dhowow channelka Sikriye Jakarta waxaan ku sugannahay sanaaga Ceerigaabo waan ku soo dhaweynaa waayahay markaa heestii miyaan ku bilaabaa su'aal baan ku weydiinaynaa barnaamijkan waxaa fududeysay shirkadda Safar Salaama oo socdaalka sanaag iyo gobollada kale isku xidha ka waran bal shirkaddaas wallaahi shirkaddaasi daan waxaan leeyahay ha noolaato hana hirgasho su'aal baan haddaba ku weydiinaya kaftana waxyaabihii kugu la yaabka badnaa jacayl ama maakhirinimo oo sanaag lagaga hadlo aad kala kulantay maxaa ka mid ah waxaan kala kulmay ugu qosol badnaa markaan gabadh layla leeyahay jeclaaday xamar bay ahayd taasi Soomaaliland ma ahayn waqtigii hore ahayd anna reer Ceerigaabo askari baan ahaa markaa sarkaal wax diglaa baan ahaa markaa ninka wasiirka maaliyadda wuxuu ahaa nin barwaani soo taqaanay mooyaan xaafadda Madiina aanu deganay gabadh baan 2 sano sheekaysanay jirdiinka Madiina aanu sheekaysanay maalintii dambe ayaa 2 dabaq hortada laga dhisay 2 dabaq soo ninka dhisanaya sidii ninkuu dhisanayay ayuu markay gabadho gaadhi XL wadata XL ki bargaa loo odan jiray naawa maxay baan gidaarkii baan fadhiyay ma aragtaa waxay tiri saaxiib halka dhalalaysa ma aragtaa halkaasaan nin jeeboon ka helay waxaan weeyahay aniga maxay la dawacday waxay tiri yeelasug ma yidhi suuq inta la aroosiyo habeenkii dambe arooskii arkay barti baan fadhiyaa hadda anoo arooskii wixii la yaaban ayaa waraaqiytiin bogtu jirtay iyo lacag aad u badan marka dollarkan lama ogoleen beriga in la qaato dibadna wixii baan akhri warqadii baan ku jawaabay waxaan idhi markaa hees baan ugu sii jawaabay gabadhii maxay markaas iyada hadallada ay ugu tiri baan gabadhii ku nacay jacaylka horta ku baabaay wuxuu ku baabaay warqadda ay soo dirtay sababtoo waxay tiri nin jeeb weyn baan helay adiguna aniga aad leedahay u fiirso hadda anna waxaan haddaan anigu laan lahaa ninkaa ila kaan lahaan lahaa jacaylka waa baabaay jacaylka halkaa ku baabaay warqaddii baan ku celiyey marka waxaan hees marka warqaddii ugu diray lacagtana waan diray lalabka iyo xanuunka iyo leedhan waxaan la lalayaa lugooyada ay gaadhay layaa malaha leelay inaad laba bogorso laadaa jacaylkoo dooq lacag ahaadee 2 dabaq nimaan degin caadda hawada sare laacdamaya mooyaa haween lama caweeyaan ninka luudinaya leel daradaraadid anna laabtagaa jaleerarka caashiqa laxoor 2 farasan kala barbar fanacninka daranay leyla heesaas aad moogta ma garat ad baad ma hadsan tahay soo waxaad gaasay maaha mid kala jirtay Ceerigaabaan haddana daalma lahayd dalxiis la yaasay daalan gabar ka jeclaa anoo hawshoodo nijaara ayaa haddana wakhriga ugu bilaabmay khirmadii Ceerigaabo bilaabatay dabada gabadha baan isku haydir aabaheed baan si lacagti u geeyay aabaheed baa marka meeshta galay waa dhintay halkii baan marka aniga soo noqday lawdaygi bay dhimay waxaan la hadlay waa garan waa gibigaba dabada yeelsi baa sameeyay gabadha waxaan ugu nama meed baan ku socdaa halka iyadoo maraysa gaadhida iyo har taagan baan la hadlay xaga socota meed baan ku socdaa hees halkaas ka sameeyo meesha loo dalxiisiyo meed ma gaari karaya bise waan ismaqiiqa macna ma laha buurtii meeshii banaan bar ma sii mutahiya miyaan karinta dhaafaa miyaan rugaba gaaraa xirmo dhaafaa wuxuu bay hor joogay markaas aan buurtii dhaafay hoos u daadegay barti sheekhu yaaliyo magaalada markaa tagay mayd qudbigiisi weynaa meeshaan ku kulaniyo macnihiya sanaag macnihiya jacaylkii shakadii macaanay maydh ma ilowdaynay oo bedela haddana marka hees labada haddana u tiri markaasaan iyadii baan haddana mid labaad ugu sii qaaday saan may tegin sulaqoosoonahay ku nooshahay sabe Ceerigaabo iyo sanaag bay yidhaahdaan suruud baa agteeda ah sinta shiikhiga yaal maydh baa laga siyaartaa maxamed dhacdaani
way cabdiraxmaan ku soo dhaw channel security aad baan ugu dhawahay nin aad u dhalinyaro baad runtii dadka ka qosliya waan kugu dhawaysaa way walaal dad mahadsan tahay maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada gobolka Sanaag Ceergaabo oo ku soo dhaweynaa marka koobaad gobolka weeyash ku soo dhawaan ku leenahay gobolka taariikhda gobolka uduga sharaf iyo karaama Allah ku sharfo su'aalan ku weydiinaa kaftana oo anugu talagalay Ceergaabo inaan weydiino shirkadda Safar Salaama fududeysay barnaamijkan ka waran adeegyada shirkadda Safar Salaama idin qabato maadaama shirkaddu ay tahay shirkad isku xidha gobolada kale maxaa ka والله runtii shirkaddan Safar Salaama haddaan nahay bulshada reer Ceergaabo runtii waa shirkad aad uga shaqeysa gobolka weeyaasha marka waxaan leenahay shirkadaasi shirkadaha kale sida Daala Group iyo shirkadaha kale ee gobolada ka shaqeeya wayna shirkadaasi ku dayda ma leenahay waa shirkad aad u shaqeysa arrimaha bulshada aad uga shaqeysa bulshadana runtii si fiican ugu adeegta marka waan soo dhaweynaa shirkadda su'aal kaftan ku bilaabaya walqali waxa jirta luqad Ceergaabo iyo Sanaag area caanka oo loo yaqaan maakhri waxyaabii kugu qosolka badnaa ama kugu leeyabka badnaa maakhrigaas Ceergaabo kullu ku badan yahay magaalada Ceergaabo runtii su'aalaha la yaabisay waxa weeye qofka labada qof ee runtii maxaan ku raadaayay labada qof ee dhalinyarada oo kale marka qof ay qof shaxaadaan ama qof waxsiyo kale marka qof lacag wada diro mid kamid lacagta hungureeyo ayaa waxa kamid ah su'aalahaasi waad loogtay lacagta waad ku soo loogtay marka su'aalahaasi waad loogtay iyo qombo baa tahay qombo oo macnaheedu waxa weeye wixii la wada siiyay baad qarsatay weeye marka bahalahaas aad caan bay ku tahay Ceergaabo baasha walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabsaaq Sugulle Secretary Jakarta oo ku soo dhaweynaya adiyo xirtaada barcan nooga timi runtii waxaan leeyahay gobolka soo dhawaada hanaga maqananina nagu soo noqnoqdaan in badan baan soo dhaweynaynaa Cabsaaq Sugulle aad dad mahadsan tahay saad nagu soo dhaweysay gobolka Sanaag ku soo dhawow channelka Secretary Jakarta reer Sanaag su'aal aan weydiinay oo waxaan doonaynaa su'aal ku weydiino barnaamijkan waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama bal ka waran gobolka Sanaag gobol dheer buu ahaayo Safar Salaamana waa fududeysay bal runtii gobolka Sanaag runtii waa gobol aad u fog marka Soomaaliland laga hadlayo marka runtii kullu shirkadahan basasku aad bay anaga waxtar noogu leeyihiin waliba siba shirkadda Safar Salaama aad baan u soo dhaweynaynaa yaaba marka adeegyada waxa kamid ah in aan ku tagi jiray sanadii hore oo kale $50 ama $60 balse imika $20 ama $15 aan ku tagno taas kamid ah shirkadda Safar Salaama dad ma shirkadu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan u guda galaya maadaama gobolka Sanaag aynu joogno arrimaha jacaylka ayaan doonayaan su'aalkaaga weydiino waxyaabii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa aad jacayl aad kala kulanto horta waxa kamid ahaa kullu qof waxa soo mara aniga tay soo martaan iyarkaaga taabanaya aniga jacayl baa horta igu dhacay aad u sii fogaay runtii inaan aan isku xaafad ahayn ayaan waxaan is jeclayn aan jeclaa anigu iyada garan maaye in 4 sano ku dhow 4 sano sidii aan ugu sheegan lahaa keliyata ayaan garan waayay dadana waxaan sameeyay wax kasta oo aan sameeyaa waan garan waayay inanta isku xaafad baan nahay wiga soo horkacdaa waxaan sameeyay ma garanayo markaan arko iska dayna wax sheegtay ayuuma waxa noqdaa biyaba lagu shubaan aan arkayn mooy meel ka markaa dhici dadna sayid saas u socoto ayuun baan maanta bixinayay isgaliya waxaan isiriyo inanta la hadal dadna telefoonkeeda baan garaacay showina telefoonkayga way haysaa dadna waxay soo qortuun hee saaxiibay soo qortay sidii nin bay la hadashay bal maxaad ugu jawaabtaa halkii baan horta aanan inta uga jawaabin aanu 4 sano sidii u jecel ayuunba mid aabihii lacag haysto uu yimi oo dadna inantii waa la doonay habeenkii lay sheegay ilaa iyo waa berigii waan soo jeeday habeenkaas igu daray inta adduunkaan joogay walina waan xasuustaa wali igama suulin taas aniga iga soo martay way adad